soomaalida meel kastay joogto anoo ah calimataan True Story TV waxaan leeyahay waa salaamantihiin waxaana kaloo idin sii jeedinayaa saan hore idinku sheegay caawa waxaa ila jooga saaxiibkaynan culus Aidiid Cabdiqaadir Xasan Faarax Aidiid Jenyo oo dad badan iga codsadeen inaan mataqaana wajigiisa ina tuso de wax badan oo Aidiid joog ka sheegana waa la socotiin laakiin Aidiid wuxuu qabtay iyo wax magaaladan waa mar dhaba idin soo gudbinaya marka nala socdo sheegaba marka caawa waxaan idin soo jeedinaynaa waxyaalaha adduunyada ka socda cudurkan adduunyada ku faafay oo dad badan ku laayay Mareykanka, Yurub iyo Afrikaba oo ah coronavirus ummadda Soomaaliyeed waxyaalo badan baan uga digaynaa waxaan studio caawa la jooga saaxiibkay Aidiid haddii intaan arrinta ugu guda gelin aan wax yar inay ka sheego Aidiid waa nin culus oo ciyaartoy wanaagsan ka ahaa waddanka kooxda Jenyo oo ciyaari jiray marka magaaladan Atlanta ilaa 30 sano ayaan Aidiid isla joognaa run ahaantii galab saaka xataa banoona ciyaarna waa la socdaa goolashan ka dhaliyay Aidiid sax inay sheegi doono waa true story marka la'aantiis waxa waaye magaalada Atlanta booni kama socdeen la samana xaqiro runta la sheegaa Aidiid waa nin sportsman waa nin u go'ay dhalinyarada inuu wax taro waa nin u go'ay inuu dadka waaweyn wax taro magaaladan Atlanta anagoo Amxaara iyo Ethiopian macnaha la ciyaarno oo Soomaaliya joogin baa Aidiid yimid ilaa iyo 1994kii kooxdu aasaasay ee hadda socota goolo badan ayuu dhaliyay ama dhalinyarada yararka haato ama dadka waaweyn ha haato marka dad badan oo iga soo codsaday Aidiid wajigiisa inaan caawa keeno waxa waaye waa ninka halkaan bidixdeeda fadhiya waa saaxiibkay waa ninka forjooyinkayga badan oo ku socdo marka ha u malaynina Aidiid inaan anigu calnahay Soomaalida waxay tiraahdaa doqon meesha lagu kaftamo in lagu diro umalaysaa marka Aidiid opportunity siinaya inuu mataqaanaa dadweynaha uu salaamo oo channelkaygan inuu yimaado aad iyo aad aan ugu faraxsanahay welcome Aidiid bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahayna abuurta ayaa mahad leh oo noo saamaxay inaan meeshaan caawa ku kulanno aniga saaxiibkay marka labaad saaxiibkay waa mahadsan yahay maadaama uu siiyay opportunity aan ku hadlayo social media aniga nin u badan social media ma ahi laakiin maadaama saaxiibkay uu yiri waa ilaa waa tagaynaa sidaasaan ku yimid waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogaan kii dibad joogay kii guda joogay waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay naga badbaadiyo Soomaali haddaan nahay muslimiin haddaan nahay adduunka oo dhan in ilaahay naga badbaadiyo cudurkan kusoo zaa'iday adduunka baa ilaahay ka baryaynaa waxba lama aha ilaahay ilbiriqsi ayuu ku baabi'in karaa ilaahow adiga maganta aan nahay waan kaa baryaynaa inaad noo fududaysid midda kale haddaan usoo laabto waxaan halkan ka salaamayaa khaasatan dadkii sportiga ahaa ee Soomaaliyeed ee aan waddanka waqtigii barsamaadkii aan wada kifaacnay khaasatan naadigii Jenyo LLBB kubad cag kubad kolay gabdho iyo wiilal dhammaan waa salaamantiin khaasatan shakhsiyaadkii aan isla kifaaxnay ilaan tiimku wuxuu leeyahay jaranjaro kuwa hore kuwa dhexe kuwa dambe kuwii aniga aan la kifaaxay waqtiga aan la soo qaatay khaasatan waa salaamayaa marka taa markaa inta ugu gudbo saaxiibkay mataan waa mahadsan yahay maadaama caawa opportunity joog badanna uu sheegi doonaa kulleyba anigu de joog nin kale kama sheega asaga ma xaafadaha uga adkay aniga markii la joogo meelaha kafeega markii la fadhiyo anaa adag laakiin ase masraxa markii la yimaado asaa toor ka ah meesha midda kale aniga haddii ahaan jiray legend oo ciyaara waddanka ciyaara maanta waxay taagan tahay mataan asaa legend maanta asagaan ku daba dhumanayna hadda marka saaxiib mataan kugu soo celiyay wakaas waa mahadsantaha Aidiid saan meeshaan inii sheegayba dadka guryahay ku jiraan dad badan baa iga codsaday inaan video soo daayo oon mataqaanaa joog isu sheego sababtoo ah social media aad baa loola socdaa laba show aan dhigi lahaa oo Minnesota aan ka dhigi lahaa iyo mid
iyo mid Ohio oo cayaarahan waa baaqdeen joogis badan baa ugu talagalay joogga ma dhamaanayo caawa episode-kan waa kii koobaad marka waxyaalo badan baa inoo soo gudbin doonaa haddii runta arabtiin coronaviruska waa cudur aan discrimination lahayn oo nin kasta ku dhaca saa la socoteen wuxuu ku dhacay prime ministerka ingiriiska wuxuu ku dhacay prince William wuxuu ku dhacay mataqaanaa Chris Cuomo oo wariye weyn asiyaan inta dad badan oo caan ah toorayaal buu ku dhacay celebrity ku dhacay wuxuu ku dhacay ninkii mataqaanaa basketballka ciyaarayay Kevin Durant ayuu ku dhacay marka cudurkan ha yaraysanina Soomaalidu waxay iska dhaadhiciyaan war anagu Soomaalina muslim aan nahay cudur naguma dhaco cudurkan gaalo iyo muslim midna uma dhexeeyo wixii takhaatiirtu inay tiraahdo yeela waxa dadkan ay wadaan Donald Trump ninkan madaxweynaha waddanka ka wuxuu ku leeyahay waan furayaa mataqaanaa waddanka sababtoo ah wuxuu raadsanayaa isaga economics hoos u dhicin inuu mataqaanaa vote kusoo ku helo laakiin marka adiga nin fakriya tahay economy iyo waxba kaagama jiraan midda kale haddaa fiirisid dadku maraykan ku leenayo waa dadka madow sababtoo ah dadka madow waxay qabaan diabetic waxay qabaan mataqaanaa heart blood pressure kaliya xanuun bay qabaan wadna xanuun bay qabaan marka lama test laguma sameeyo test sites ma lahan Memphis iyo meelaha lagu baaba'ay Detroit iyo dadka madow baa cudurkan u dhimanayo inta adduunyada cudurku ku dhacay hadda aan joogno weli dad u dhimanayo saacadan aan fadhino sida xaqiiqda waa 1,767,855 waa 1,767,855 inta dhimatay waxa waaye 108,281 number 1 waxaa ah Maraykanka sababta number 1 noqdeen wax kasta adduunyada waxay rabaan number 1 inay noqdaan hadday football noqoto hadday soccer noqoto cudur coronavirus wuxuu ku leeyahay number 1 baan waa true story Maraykanka waxa jiradan waxay ku dhacday 530,463 20,499 qof baa u dhintay waxaa ku xigtay Spain oo waxaa cudurkan uu ku dhacay 163,227 qof 16,606 qof baa u dhimatay waxaa ku xiga Talyaaniga oo lagu baaba'ay asna 152,271 qof ayuu ku dhacay 19,468 baa u dhimatay marka waxaan idin sheegayaa cudurkan discrimination ma laha please Soomaalideena waxaan iska dhaadhicinaa mataqaanaa anagu Soomaali baan ahay nima dara turistor aan sheegaya shalayto nima baan ark warniyo waxaan meesha tuurintiin ka taga ee takhaatiirta dhageysta guryihiina gala ilmihiina iyo xaasaskiina la jooga nin baa wuxuu yidhi war anaga ma cambuulo iyo bun baa cunaa coronavirus waxba nagama qaadayso waa turistor cambuulo iyo bun coronavirus ma kaa celinayso marka please dadka expertska dhageysta waana naga tahay ma rabna hal qof oo Soomaalida macnaha dadkan Soomaaliya ku baaba'een ma rabna dad kale waddanka nooga dhintaan oo mataqaanaa coronavirus ku laayo turistor kale inii sheegaya oo nin takhtar ingiriisa wuxuu yidhi takhaatiirta ugu fiican ee Maraykanka macnaha takhaatiirta ugu fiican anaga waayo dhaw nin ingiriis takhtar maxaa dhacay ninaan liverka ka bedelin yiri wadnaha beer ka bedelin marka beer ka bedelin ninkii 6 beri ka bacdi shaqo raadsaday mid kale oo Talyaani soo booday waxaan ka fiican beer maxay tiireen ninaan wadnaha ka bedelin yiri marka mataqaanaa 2 beri ka bacdi shaqo raadsaday yiri mid Jarmal soo booday wuxuu yiri waxaas aan ka fiican buu yiri true story waa sheekada wuxuu yiri nin baa maskaxda ka bedelnay after 2 days ninkii shaqo raadsaday Maraykan wuxuu yiri maxaa jira adinka annaga waxaan madaxweyne u dooranay yiri ninaan maskax lahayn beer lahayn wadna lahayn Maraykan dhan shaqo raadsanaya marka waxaan idin sheegayaa ninka North America u soo ordayo waa lagu qaataa adoo ama Baydhabo jooga ama Garowe jooga ama Albuur jooga oo aragaaga raacdo coronavirus aan dadka halka kugu imaanayso marka North America waa lagu baabay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadeena maaragtay inuu badbaadiyo midda kale waxaan idin sheegayaa magaaladooyinka Soomaaliya ugu rabsho badan haddaa fiirisid waa gaalkacyo inkastoo saaxiibka ciidid oo gaalkacyo ka yimid garacad buu ka yimid gaalkacyo ma ka dheera gaalkacyo waxa waaye dadka waxaa lagu dhiirigeliyaa ama dadka lacagta leh ay bixiyaan mataqaanaa lacag si qabyaalad iyo dagaal u galaan haddaa fiiriso Soomaaliya sportska volleyga ugu horreeyay Soomaaliya laga sameeyo volleyballka
nimanka ugu fiicnaa gaalkacyo ka yimaadeen dad badan oo soo kala ciyaaraa jira dhalinyaro badan oo meeshaan ku bartay ayaa kamid a waxaa kamid a mijir nin la yihahdo waxaa kamid a nenele waxaa kamid a maxamed karani dad badan yaqaano waa marka dadku waxaan dhihi lahaa please stadiumka gaalkacyo ku yaalla lacag geliya nin waxaa la ii sheegay qandawalo la yihahdo oo aydid qaraabo yihiin oo lacag badan sameeya ninkaas true story ku dhacday ii sheegaya maalin horta waxaa la yidhi showgu fiirsanay odagaan anigu gala wuxuu yidhi odagaan mataan waa nin dhergey kulahaa oo dad ku dhargaacsanaya qandawalo sheekadiisa soo hel true story ii sheegaya ninkan waxaa waaye qaad buu gadaa waa nin lacag leeya habeen buu frustration haya dayaxu meel fariistay asagoo qayilaya buu ilaa arig yar baa meesha fadhiya dharkii buu iska saaray arigi buu dul saartay arigi waa iska tegay dhagax buu umaleeyaa hadhow markuu kacay arig dharkiisa ma laha ninka wuxuu kuleeyahay waraadiyo gadoonkii baa jira mid kaloo ku dhacday maalin dhawt waxaa la yihi qandawale gaalgacan kugu imaanaya runtaan kuu sheegaya hadday dayn weysid aydidna waa ag fadhiyaa maalin dhawt wuxuu yihi qandawale waxaa la yihi warniyo cumradii waa la joojiyey xajkina waa la joojiyey qandawale wuxuu yihi warniyo ramadaankani ma la joojiyey waa true story marka opportunity caydid waxaan sheegayaa caydid wixii jooga iga sheegayo asagaan ku wareejinaya waa inay soo noqonaya waa mahadsan tahay mutaan saaxiibkay aad baan ugu mahad celinaya maadaama mediaha caawa iisiiyey chance inaan ku hadlo haddaan usoo laabto horta barashadeeni aniga isaga mutaan waxaan isnaqaanaa ilaa iyo 26 sano ayaan isnaqaanaa maraykankaan isku baranay hore isuma aan aqoonin laakiin markii aan ka sheekaysanay dee soomaaliya iyo waqtigeeda markii laga sheekaystay macnihii waana xamar baan laisku aqooninay soomaaliya xamar baan ka joognay xamar baan laisku aqoonin mooyaane laakiin markii dambe waa isgaranay saaxiibkay mataan barnaamijkan fanka wuxuu ka hadda ma aha mid madu bilaabay haddeer wuxuu bilaabay dayaraantiisuu bilaabay marka taariikhda markaan baaray oo aan dad reer ceelbuura aan la sheekaystay ninkan ceelbuur ku koro waayo marka waxaa la ii sheegay inuu heesaha hergala kaga soo qayb galay galguduud iyo hiiraan tartan hiiraan asaga iyo nin la yiraahdo finaal waxaa isku soo baxay la yiraahdo axmed nuur jango marka mataan axmed nuur jango waa ka badiyey mataan waa iska laabiyey xamar buu soo galay kadib janis dibaddu soo aaday anaa isbaran marka waxaan ku yidhi mataan dee waqtigaas ahayd fank ku jirtay ma ahayn inaad heesto ee waxay ahayd inaad aad dhinaca majaajilada maadaama haddeer uu yahay nin aad macnihii celebrity ku ah ka hadalka waxyaabaha la isku xifaaleeyo marka mataan waa mahadsan tahay anigu dee media waa la iga fiicaya ka hadalkiisa waxaan laakiin soomaalida u sheegayaa siduu mataan idin sheegay dadka waxgaradka u sheegayaa horta wax walba waa amar ilaahay baa xukunkiisa ku dhacaan ilaahay laakiin caqli buu na siiyey waxa xun looga leexdo wax wanaagsanna lagu aado marka ha dhayalsanin qofka kaa aqoon badan kaa waay aragsan hadduu ku waaniyo uu yiraahdo waxaan iska dhaaf meeshaan ha isugu tegina tiro badan ha isugu imaanina waqtigaas yaa la soconin guryaha hala joogo waxaasoo dhan macnihi waa wax macnihii la tijaabiyey ee lagu najaxay marka ha ka madax adeegina inaad samaysaan ku dadaala si ilaahay nooga badbaadiyo dhibaatadan dunida kusoo zaa'iday cudurkan coronavirus marka arrintaas waa arrin muhiima ma aha wax haddeer dhacay waqtiga asxaabihiyaa dhaceen xataa waxaa sameeyey rasuulka ilaahay soo dirsadaa sameeyey inuu kala xadiday dadkii inuu dadkii qaar magaalooyinkiina jooga ha soconina marka waxaan wax macnihii waa caqli iyo xikmad ku dhisan waaye marka ha fududaysanina dadaal sameeya waa ognahay inaan ummad muslima nahay waa ognahay inaan rumaysanahay inay dhimashadu mar tahay cid diidan ma laha taas haddana dadaalku waa furan yahay marka dadaalka furan ma aha mid lagu shariig yeelayo ma aha macnihii waa mid caqliya oo xikmada inaad samaysid dhaqaatiirta inaad la xiriirtaan dadka waay aragsan inaad la sheekaysatid waa loo baahan yahay marka gurigana lagu xiray iyo ma laga bixi kara iyo macnaheedu ma aha wax oo dhibaata guriga cid kugu xirta markii hore ma laha laakiin hadda waxaa lagu celiy guriga ama joog lagu yiri ama ha fogaan lagu yiri waxa waaye wax jiro dhacay la arkay waa la tijaabiyey waay marka ha fududaysanina dhalinyarada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dadka aqalgalka ah ha la iswaaniyo
ha laisla hadlo, dhalinyarada ha loo sheego, odayaasha ha laisu sheego, odaygii maarkin waxoogaa maaragtay wax ka leexsan yihiin hala toosiyo. marka arrintaas waa iga dardaaran, maadaama nin Soomaaliyeed ahay, Soomaalidana aan jeclahay, meeshaan ka nimid aan macnihii qofku wuxuu yahay inuu ogyahay loo baahan yahay. dhul iyo dad iyo inaan leenahay waa ka warhaynaa, ilmaheenaan barnaa, sportiga aan wadno wax kale kuma wadno. waxaan u sheegnaa cunuga sportiga aan wadno, waxaan u sheegnaa inuu dal lahaan jiray, ciyaartoy hore jiri jirtay, in wax kasta referee jiri jireen, Premier League la ciyaaro wadankeena ka jiri jiray, koob Yurubka la ciyaaro inuu wadankeena ka jiri jiray, wax kasta inay jiri jireen, inaan madaxweyne lahaan jirnay, madaxweyneyaal lahaan jirnay, inaan dowlad iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo ciidan iyo wax walba lahaan jirnay. waxaas oo dhan waa barnaa. marka ma aha inay baristooda wax iska qiyaali ama, laakiin dhabta inay tahay inuu ninkan meel uu ka yimid iyo inuu Soomaaliya jinsiye yahay, dhulka ka yimid ayaan u sheegnaa. waxaasna waa wax macnihii waajib nagu ah inaan gudbino message-kaas, maadaama anaga waqtigeena aan soo aragnay, walow dhalinyaranimadeena iyo waqtiga ugu fiicnaan wadanku naga burburay, hase ahaatee kama aanan safrin. weli wadanku waa rabnaa haddii aan la yiraahdo. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu isku hagaajiyo, isku tooso. hadda kuleba meel fiican bay maraysaa. mar baa jirta aan baarlamaan lahayn, mar baa jirta aan madaxweyne jirin, mar baa jirta meel lagu ciyaaraysa jirin, laakiin maantay waxba tallaabay keentay, madaxweyneaan isbedelay, baarlamaan la leeyahay, wax kasta. marka wax walba waa gudbayaan haddii aan la yiraahdo. waa kulleyba waa la xasili doonaa. marka taana waa iga waano. dhalinyarada iyo odayaashana arrintan kale ee cudurkan fayraskana sidaa ha looga digtoonaado. marka mataan saaxiib waa kugu soo celiyey, anigoo shaaciro badan ma hayo. saaxiibkay wakaas mahadsantahay Aidid. I'm glad inaa caawa timid oo dadka waana Soomaalida u jeedisay. dad badan oo iga codsaday inay wejigaaga arkaan caawa inay ku bartaan. dadka waxay ugu yaqaaneen inuu mataan keliya Aidid yiraahdo. Aidid oo live waa kana. marka Aidid Jenya la yaqaan, ex ciyaartoy Soomaaliya, naadigii Jenya u ciyaaray. ninkii yaqaan waa yaqaanaa. inta barasho wanaagsan bakee dhalinyaradu iyo dadka soo baxay ee kacaanka hadda soo gadaalahan ka kacay. nin 25 sano jira ma garan karaba. anigu 25 sano ka hor aan wadanka ciyaaraya. marka barasho wanaagsan. ninkii jidkii ugu arko way soo qaban kartaa hadeer. saaxiibkay hadda waxaa u maleynayaa media u furan, qolyaha haddaan xoogaa xifaaleeyo hadda wuxuu ku leeyahay fura gambalaal garaaca soo yaaca. marka saaxiibkay oo ku soo celiyey waa caadi. waqti gabagabaan ku jirnaa, marka barnaamijka ma dhammaanayo, episode koobaad waayo. insha allah weega soo socdana waan rajeynaynaa inaan kuwa kala duubno. laba joog oo true story ahaan ku xireyna. mid allaana ka dhacda, waxay dhacday 3 beri ka hor, waa true story. laba nin oo saaxiiba xaafadda Spring Chase la yiraahdo ee allaana ku taalo Memorial Drive meel Soomaalidu degan tahay ayaa ka dhacday. labadana waa laba nin oo truck drivers. mid haddii qabiil aan sheego hadda xoogaa dadaa ka xumaanayo. mid waa aalow ninkii garanaya. midna waa reer Baydhabo. labada nin saaxiibo fiican waaye. maalin weyd mucjisa ka dhacday wadankeena. waxaan aan wadankeena macnaha dad islaam aysan sameynin ama bani-aadan aysan sameynin ayaa ka dhacday. waxaana jirooyinkii macnaha gaalada iyo dadka yuhuudda iyo aan soo galay. qof intaa la dilo la gubo noloshayda inaan arkaa maqlayo uma maleynayn. taas horta waa tragedy. marka qofkii sameeyeyo adiga ilaahay. laakiin waxaan dadka ka codsanayaa inaysan waxyaalahaas kale ku kacin. waxaa waaye ummad masaakiina. qofka dambi kaa gala xataa inaad dishid ma ahan islaamikale. marka labadaas bay kasoo kala jeedeen. ninkan marka waa truck driver, gurigu yimid, coronavirus laga soo xaraday, guriga in iskugu yimaado soo maaha. saaxiibkaa wuxuu arkay kii kale oo mindiye sifaysanayo, mindiye waaweyn. ninku waxaa war saaxiibka maanta cunta inay karnaa maqaayadi waa xiran yihiin, maanta waa ka dabaalatay. korshiinku soo galay mise yaanyo male, waxba ma lahan, cunto male, hilib male. ninka midiyina waa lisaya. saaxiibka Aidid waa true story. saaxiibkiisu wacay, mid kale wacay, warniyahow dhibaataa jirta. lama socdid miya adiga? baydhabo sheekadana ka dhacday. wallahi saas miya? ninkii coronavirus aan laga qaataa uu yidhi ilaa iyo dalas oo taraagiisi la aad uu ka carab. labadaasna waa laba nin oo saaxiibada. marka jooga haddii fursadaan ninkaas waxaa leeyahay be careful guygaas. tan kale waxaa dhacday qabri bayax lagama tegi karo. maalin dhaweyta mid reer qabri bayax taraagle Soomaali taraagle badanta ayaa taraagiisa taraag cusub soo gatay 100 iyo xoogaa kun oo $100 kusoo baxay. waa 2019 taraag
cascadia Freightliner dealer keenay dealer markuu keenay waxaa la yidhi abti traagan waayaraa gudaha dhanka go-an koo driverka kula wada ninka kula wadaa gaarigan waayarada googoyey inside job waayo war ninka maalintii keligaa gaariga watee ma saaxib ma jirtaa la yidhi gaarigaa la baaray waa la fiirshay waayarada dadka experts waa dealer waayarada arkeen ilaa ninka oodka iyo timir iyo saliid iyo balaayo gaariga ku wataa jiir weyn baa gaariga usoo galay oo gaarigu fadhiya wixii markay dhimaadeen jiirka muxuu cunaya waayaradu cunaya waayaradu eber ka dhig hadhow gaada markay furfureen jiir weyn baa kasoo baxay hadhow ninka yimid si aroo ku sheegay ko driver nalaay oo nin kale gaariga kula waday jiirkan baa kula waday gaarigii taasna la qabra bayaxow waxayna leeyahay baabuurka cuntada oodka ay waxa saaranaysiin khasaaro weyn idin keenay iska ilaalisha marka insha allah ninkii xisbiga furtay ninkii xisbiga furtay oo waana lucuhaya ha ninka la saaxiibka jira ciidid baa xasuusiyey nin saaxiibka talada ka dhacatana maxamed cumar gaagaala la yihahdaa sugaas baan aan jirnay ninkan asalkiisa waa reer buulabarda waa xisbiga furtay maalin dhaweyto xisbigan arkay waa true story aniga hadda gaagaal i qabsaday haddii kale shaqadii maa waa wax internetka ku arkay ninka xisbiga furtay xisbigiisa waxaa la dhahaa xisbiga xoreynta soomaaliyeed war soomaaliya yaa laga xoreynaya soomaaliya waa baxorbe xisbiga horumarinta soomaaliyeed hadduu dhihi lahaa wax dhan ahaan lahayd ninkii khudbeyaa la yidhi 8 qaraabada oo meesha keensaday saaxiibkii waa loo dhiibay microfonka wuxuu ku leeyahay annaga waa nala dhacoohayaa waa nala diloohayaa gaas baasiinkana la qaadanoohayaa mirar qoyle fudhi war dee ninku siyaasi ma waxaana kulaa markaa gaal waa dhina at least dadka siinta si gooni u hadlaan midda kale oon ku xiraya waxay tahay soomaaliya dowladda federaalka iyo jubbaland last year khaaquula ka dhacay waa la socotay wax kasta soomaalida marka aniga sportsa u bedelay sheekada khaaquul ka dhacay waxaa yidhi waa champion league maartay liverpool kooxda ugu adag waa dowladda federaalka waxa waaye liverpool oo kale waa liverpoolna laba ciyaartay adagay wadataa oo weerara waa maxamed saalax iyo mani marka waxaa yidhi farmaajo iyo kheyre waa maxamed saalax iyo mani waa rag ay weydiiyo kee mani hala yidhi dee waa taqaana ka maniga kan madow ah anu ma sheegi karo adhata waa rag ba ay qabsanayo saaxiibka marka dowladda federaalka waxay soo boobsatay goboladan oo kale mataqaanaa galmudug iyo kanna wuxuu boobsaday dhinacan kale final iskugu yimaadeen saaxiibka marka ugu fakeray wuxuu sirina weerarkan macalin kartida maxaa samaysaa kan waa Juventus oo kale wuxuu sameeyay marka 3 difaac oo adag oo qaraabada soo watay marka mataqaanaa wuxuu leeyahay Sheekh Shariif والله انا اللي مري كريم دفاع لصوته الدفاع لصوته نمبر 4 هو نمبر 5 حسن شيخ واي تاسد كو في حي نمبر 3 عبد الرحمن عبد الشكور واي ازداد كو في حي نمبر 2 صاحبك صوت شيخ شريف قال عيرتي 0-0 كل ما ديبا لو دغالي فاينل waxaan sugaynaa next year taasna way noo socodsiin doonaa marka waa joog qaata I hope you guys enjoy inta guriga joogtiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.